shacbi weynaha laba baan farayaa waxaan farayaa in si milgale maamuus loo soo dhaweeyo xildhibaankeena Maxamed Abiib oo talo inagula soo noqonayo berito hadii Ilaahay yiraahdo waxaanu u sheegaynaa bulshooyinka degmada Boorama afarteeda xaafadood inay qof walba uu ku diyaar ahaado waxaan la hadlayaa haweenka awdal ayaa la hadlayaa kuwa dila jooga kuwa tulli jooga kuwa Boorama jooga waxaan dhamaan shacbi weynaha reer awdal reer Boorama ugu bishaareynayna in beritoole la soo dhaweynayo Xabiib Malaayiin shacbi weynaha degmada Boorama iyo guud ahaan gobolka Awdalba waxaan ogeysiinaynaa in beriyo sabtiya uu inagu soo fool leeyahay xildhibaankii aqlabiyada Maxamed Abiib Yuusuf ugu soo fool leh 8 subaxnimo hadii Ilaahay yiraahdo degmada Boorama waxaan shacbi weynaha faranaa in si milgale maamuus leh tolnimo leh la jecel leh ay u soo dhaweeyaan xildhibaanka waxaan farayaa shacabka laba qodob oo kaliya midna waan ogeysiinayaa horeysiinayaa halkii loo asteeyay markii hore oo ahayd barxadda Xaaji Daahir Stadium waynu ka bedelay waxayna nuu bedelay barxadda Hotel Sow ama halka Siirooga laga dhisayo ama afaafka hore magaalada Boorama laga soo galayo shacbi weynaha laba baan farayaa waxaan farayaa in si milgale maamuus loo soo dhaweeyo xildhibaankeena Maxamed Abiib oo talo inagula soo noqonayo berito hadii Ilaahay yiraahdo waxaan doonayaa qofkii access wata inuu si qiimo leh oo waxa weeyaan waqti hore ah uu yimaado halka loo asteeyay oo ah afaafka hore ee Hotel Sow waxaan rajaynayaa qofkii gaari wata inuu gaarigiisa ugu yimaado kuwa basaska aroorta hore baxaya halka dadka geynaya hadii aroorta hore aad soo kala hadana halka aad isku timaadaan qofkii kale lug ku soo gaari kara inuu halka yimaado kii kale intaaba awoodin inuu gurigiisa horteeda u soo baxo oo shucuurta muujiyo waxaynu diranaa dareen weyn waxaynu jawaabanaa waxaynu dareenka weyn ugu jawaabanaa wax magaratada ku tumata sharciga mid kalena shacabka waxaan leeyahay nabadgelyada inoo ilaaliya aynu kala shaqeynaa laamaha amnaanka nabadgelyada qof inuu wax naga noqdo ma ogolin inay albaab wax naga noqdo ma ogolin in buuqiyo rasaas dhacdana ma ogolin xildhibaanka si sharaf leh aynu soo dhaweyno caawa fariintaanu diraynaa waxay tahay in berri oo sabti ah oo ku beegan 20ka bisha xildhibaankii shacabka oo berri ku soo aadan yahay abaaro 8 subaxnimo marka dadweynaha waxaan u faraynaa fariin ah inay nabadgelyada ilaaliyaan amniga sugaan qof walbana halkuu joogo ka soo dhaqaaqo qofkii baabuur haya qofkii kale aan baabuur haynayn goobaha dadku ka raacayaan yimaado marka waxaan u faraynaa laamaha amniga inay shacabka kala shaqeeyaan amniga fariintaas aynu faraynaa reer awdalna guud ahaan waxaan leenahay inay isku soo baxaan shacabka guud ahaan isku soo baxaan xildhibaanka si wacan aynu soo dhaweyno si milgale tolnimo leh la jecel leh maamuus leh aynu rajaynaynaa waxaan dhamaan shacbi weynaha reer awdal reer Boorama ugu bishaareynayna in beritoole la soo dhaweynayo Xabiib Malaayiin xildhibaankii shacbiyada reer Somaliland gaar ahaan reer awdal waana maalin mudan qof kasta oo reer awdal inuu shucuurtiisa muujiyo ka soo qayb galo madasha iyo meesha lagu soo dhaweynayo 8 subaxnimo waa maalin reer awdal hatta kooga shaqeynaya aanu shaqo tagi karin ilaa uu ka soo qayb galo kulankaas waana shardi waana shuruud weyn oo qof kasta oo reer awdal hor taala waana maalin hatta way dhaaftay isku imaadin iyo cabasho iyo waxa way talaaleyno leeyimday taladeena muujinayna shucuurteena ku muujinayna waxaynu ku muujinaynaa inaynu ka soo qayb galno hor nimaadno dhageysano aynu tusno hadaanu halka wax ku hayno halka wax ku yahay waana madal aad u muhiim ah qof kasta oo reer awdal hatta hadaad shaqada tagayso shaqadaada dib u dhigo waa maalin aanu cidna shaqeyn karin cidna waxba ayna qaban karin cidna aysan waxba sameyn karin 8 subaxnimo qof kasta oo reer awdal waxaan ku qasbaynaa in madasha yimaadaan hadii laga la hargeysa shalay waxba kuma tiid waxaynu rabnaa inaynu maanta tusno inuu Boorama wax ku yahay waxa la inooga baahan yahay inaynu si mugle iyo miisaan leh u soo dhaweyno sida hore ay uga dhawaajiyeen walaalaha halkan ka hadlay berri waxa hadii la ka dhigo lagu soo dhaweyn doonaa barxadda weyn ee ka soo horjeeda hotelka Sow ama halka Siirooga magaalada Boorama laga dhisaya halka ha yimaadaan dhamaantood waxaanu u sheegaynaa bulshooyinka degmada Boorama afarteeda xaafadood inay qof walba uu ku diyaar ahaado goobtiisa boosteejooyinka halka basaska laga soo raaco halkaas oo aanu ka soo qaadi doono hadii Ilaahay ka dhigo dhamaan waxaynu ugu baaqaynaa shacab weynaha degmada Boorama inay amnigooda ilaaliyaan nabadgelyadooda ilaaliyaan
xildhibaankoogana si qurux badan u soo dhaweeyaan. waxaan la hadlayaa haweenka awdal ayaan la hadlayaa kuwa dila jooga kuwa tulli jooga kuwa boorama jooga berri waa inaad bannaankiisa soo dhigtaan aad maaragtay aad muujisaan soo dhaweyn iyo maaragtay wax qurux badan aad la timaadaan ayaan aad idinku soo hargabayhay ma hadli karayo marka raalliga haada goynoo berri iyo waxaad soo damaashaadka dhigtaan la yaabo